furitaankii lay furay laba nin baan ka faa'iiday ninkii baa yaabay oo naxayo gabadhii saweego maxaa tiri buu ku yiriyo dawaa lay furay bay tiri balse laba nin baan ka faa'iiday 20 jira sheekadani waxay la yiraahdaa ka faa'iiday furitaankii waxay ku socotaa hooyo markaas la furay waxa jirtay gabadh baa waxa dhacday in la furo oo ay dhashay laba wiil iyadoo dhashay baa la furay maalin maalmo kamid ah ay tukaan soo gashay tukaan markii ay soo gashay baa waxay ugu soo gashay nin ay is yaqaaneen waa hore oo markaas ay asxaab ahaan jireen ka bacdi ninkii baa la is waraystay oo war hebelo war iyo waran war xaalada ka warano war waan fiican ninku markaa uu ogayeen gabadhan la guursaday ka waran guurkaaga iyo noloshiyo waa la is waraysto waxay tiri hebelo horta wada geedin la guursaday balse waa la furay balse hal la furay de furitaankii laba nin baan ka faa'iiday furitaankii la furay laba nin baan ka faa'iiday ninkii baa yaabay oo naxayo gabadhii saweego maxaa tiri buu ku yiriyo waa la furay bay tiri balse laba nin baan ka faa'iiday 20 jira oo bari anfacaya ninkii baa maxaad ku hadlaysaayo maxaan ku hadlayaa runta bay tiri ninkii baa yaabay oo deemoodi inuu gabadhii wax kale ay ka waramayso oo naabal halka dub ugu noqo oo de ku noqon maayo bay tiri hebel wada geedin lay qabay layna fur de furitaanka ka bacdina laba nin ayaan anigu ka faa'iiday dabcan iyadu halkaas istaagtay de ninkii baa shoogay oo naxay oo yaabay oo gabadhii xoogaa hadalkii baa duulduulay oo waa la yar markaasi afdaafay de ninkii moodaya gabadhu inay amuuro kale markaasi ka hadlayso gabadhina de waxay ku tiri ku farax oo maxaan ku faraxaa ma waxaan aad kula hadlaysan ku faraxaa laba nin baan faa'iiday ma ku faraxaa ha laba nin baan leeyahay de hore uma dhacin buu naag laba nin leeyahay maxaad uga jeedaa waxa de waxaan uga jeedaa inaan laba nin furitaanka dabadii ay yeeshay sheekadii oo halkii taaganay ninkii iyo gabadhii rabirow de qac isku xakirayeen ayuu ninkii dukaanka soo dhex galay war maxaad isku haysataan buu ku yiri de ninkan ilaa uu yaabay iyo sheeko ka daaweyn baa loo sheegay markiiba uu soo booday wuxuu yiri bal gabadhan dhageysa waxay leedahay waxay leedahay oo de waxay leedahay laba nin baan leeyahay waxaan ku ka waran bal guurkii iyo noloshiyo de waxay tiri waa la furayso furitaankii laba nin baan ka faa'iiday ka bacdi waxa dhacday gabadhii buu ninkina waraystay war bal ka waran adigu maxaad ka hadlaysaa dhankaaga de anigu waxaan ka hadlayaa de gabadhan waxay igu tiri laba nin baan ka faa'iiday furiinka dabadii maxay ka wada manaag laba nin laba jiray ninkii baa de kala mas'uul war balistijiya sidan looma wada ka bacdi wuxuu u sheegay inay gabadhani markaa ay u jeedaan laba wiil baan dhalay balse ay khalad fahmeen labadoodu dabcan de sheekadii ninkii baa halkii ku kala qaboojiyay iyagoo de markaasi irka isla maraya marka sheekadani waxa u dhigneed isfahan laan dhacday dabcan isfahan oo asagan waxa ka yaabisay labadan ay leedahay gabadha ay leedahay ayuu fahmi waayay iyana si kale u fahansiin garan weydii marka isfahan waa de dabcan Soomaalida la tiraada hadal waa margiyo ninna si uu yiri ninna si uu qaaday marka sheekadaasi intaas aan ku soo gabagabeynaya
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا هودا أنا كلا حريداي ملك استواد كجوكتان ضافها دنيا إي عالمك كسو دوادا برنامجك شيكا بشيكي كينتا وتطبات كيبا هالمركلة سعوتان تلفزيون سي بي تي في حرونتيسا وكل أيها مقالة هرقيسة برنامجك آلا بوحل السعودية هاني قرب الله أحمد ديريا إيه سامية حسن ركسامي wadahay aad iyo aad baad mahadsantahay Rabiira Axmed Diiriye dabcan Rabiiro barnaamijkan sheekaba sheekay keenta waa barnaamij aynu ugu talagalay daawadayaasha CBA-TV oo aynu markaasi aynu ku madadaalino si ay uga yarnastaan wararka iyo markaasi barnaamijyada kale ee siyaasadda iyo arrimaha bulshada ku saabsan dabcan Rabiiro balaadan kugu soo dhaweynaya iyo sheekada u horeysa ku soo dhawow barnaamijka haddaynu hore ugu socono saamiyey ninba waxa uu guursaday gabadhaasi uu guursaday ayaa waxa soo furay waxa ka geeriyooday baan jeedaa 3 nin hore saamiyey sheekada ku sii socday ninkan ayaa wuxuu guursaday gabadha show 3 nin hore ka geeriyooday habeenkii aqalgalkooda ayay aqalkiisa ku yimaadeen dibadii 3 koofiyadood oo kala midaba meesha saarnay ninkana bidaar buu leeyahay koofiyad gashay markii uu soo galay halkii uu soo fadhiistay waxa ka sheekaystay buu ku yiri koofiyadani maxay ahaayeen marka wax moodaya qaar asaga loo diyaariyo aba bidaar ahaa la leeyahay inaga qari xaqis kasto ay isku bedesho marka islaade waa fikir ay ku sii dhigtay oo qorshe ay ku tala gashay si aad ma garanaysaa isbedel de koofiyadahan kala isticmaasho adiguna isticmaasho waxa dhacday wuxuu ku yiri koofiyadaasi maxay ahayd casi ninkaygii hebel oran jiray Fariid ahaayo sidan ahaayo wadnu istaagay baa lahaa waa ka yaabay buuri haye oo tan labaadna maxay ahayd ninkaygii kaba si wanaagsanaayo hebel oran jiray sidan ahaayo asaguna farsamo ku shaqeyn jiray farsamada gacanta sida ahaa ayaa meel ka shaqeynay baa la qabsado asaguna waan ku xasuustaa wallaba tan saddexaad ka waran tan saddexaadna nin taa jira oo maal qabeeno aan iskuursanay aad u wanaagsan baa lahaa asaguna wuxuu iska ahaa dadkan diyaaradaha raacay safarada taga ee meelo badan maro oo asagoo diyaarad saaran ba diyaaradii la qaraxday asaguna wuxuu ku geeriyooday sidaa ninkii uu yaabo waxoogaa uu aamuso intuu tiisina furo ag dhigay buu walaal tanna ku daro haddii lagu dareero lagu ninkii afraadmee naxdin buu la cararay tan afraad ku daro tan geeriyaha igu sheegin saddexdaas waa dhintaaniga geeriyaha igu sheegin anuu imikana xanfaraya laakiin marka lagu daro ninkan ka waran waxaad tiraahdaa ninkii afraad wuxuu la cararay naxdintii buu la cararay waayahay dee gabadhii iyo bartii joogo habeenkii aanay aqal gelinba ayuu sidii u ku cararay u ku tagay subaxii baa waagi bariyay dadkii baa yimid oo hebelme iyo waa tiri hebel xalayba u tagay xalay bas ma naarago u tagay oo maxaa dhacayo de sheekadii bay ka soo sheekaysa ninkii hebel ahaa haddaba show nin filayo hay'adda ayaa soo celinaya wuxuu yiri ka afraad la dhaw dhintay maaniyad sheegaysa war gabadha waxay diin siinay hada wasalaam Soomaalida Rabiiro markii hore berigi hore waxay oran jirteen gabadha rag badan ka dhintaan waa san cadaalad ayay oran jireen Soomaalida dhaqankii hore dagu yaabay wuxuu yiri 40 koofiyadood ee ragana meesha ka wada baxay wada siro garaysmay tameen dhalinyaro oo guurdoona maskaxo gabadhii ma isfahmin ma guursaday habeenkii koobaad ee arooskiisa dhacdadii ku dhacday ayaa dhacdo loo qaadan lahayn badee qof kasta uu ka carir la ileen sheekooyin kale iyo qisooyin kale iyo nolol kale sugay in markaba geeri lagu bilaabo la yiraahdo kaasina u dhintay oo intuu saaro ag dhigay walaal anigana ay ugu tarinay ninkaasina naxdin buu la cararay ilaa afartiba way dhinteen ba ayaa ka sii xunay marka sheekooyinka qisooyinka imka xagaaga ay u soo wareegi doonaan saamiye soo dhaw mar labaad aad iyo aad baad mahadsantahay Rabiiro hadii aan aniguna sheekadani aan soo qabtaa markani aan gacanta ku hayo waxay oranaysaa sida tan waxa jirtay gabadh marwe ah gabadhaasi subax kasta waxay sameyn jirtay rooti ayay u duwi jirtay guriga iyo markaas caruurta rootiga ay dubto subax kasta waxa jirtay xabad dheeraad ah oo ay markaasi sameyn jirtay rootigii subax kasta oo ay sameeyso xabada dheeraadka waxay ku ridi jirtay khaanad yar oo guriga banaanka marka looga baxo ku taala si markaasi dadka masaakiinta ee wadada maraya ay u qaataan oo ay u cunaan subax kasta wadada waxa soo mari jiray Rabiiro nin ka shaqeyn jiray meelahan dhirta
oo dhirgooya midhaa la dhahaaye nimankan dhirta googooyaa ayaabaa soo mari jiray oo subaxii markuu shaqada kusii socdo ayuu roodhidaasi ka qaadan jiray halkaasi. subax kasta markuu Rabiirow yimaado goobtaasi wuxuu oran jiray ninka xumaan sameeya ama xumaan fala isagay la taala, balse ninka wanaag sameeya isagu u soo socda wanaagaasiyo waa mid uu iman doona. subax kasta marka uu qaato halhays kelmadaas ka dhigtay. waxa dhacday gabadhu subax kasta marka uu ninku qaadanayo rootiga dhigtay uu dhigtay way dhageysataa. subax dambe ay carood waxay tiri ninku subax qura xataa mahadsanid kuma oran. subax kasta wuxuu yiraahdaa qofkii xumaan sameeya xumaantii isaga la joogtaa, kii wanaag sameeyana wanaag wuu yimaadaa. waxa dhacday in subaxii dambe waxay ka carootay hadalkii in rootigii intay qaaday ay sun ugu dartay. waxa dhacday in rootigii intay qaaday sun ugu dartay way qaaday. waxay istir khaanadii gali. khaanadii markay istir gali baa gabadhii gacantii ay jaraysa way gareertay way yaabtay. gabadhii way xanuunsatay, xanuun baa qabtay, roodhidii baaba dhulka kaga dhacday. waxa dhacday gabadhii in ay istiride malaha adigaaba dee masiibo cagaa la sii galayo. rootidii bay ka qaaday meeshii way tuurtay. rooti nadiifa ayay meeshii ugu rideen. waxaa jiray Rabiirow oo la yaab lahaa. gabadhu waxaa jirtay wiil ay lahayd oo ay dhashay oo markaasi in muddo aba ka maqnaa. waxa dhacday habeennimadkii maalinka habeennimadkeedii inuu wiilkeedii albaabka soo garaacay. way ka furtay. dabcan wiilkeeda waqti hore baa ugu dambeysay. wiilkii bay la yaabtay. wiil duruufi ka muuqatay dhibaato markiiba way garatay inuu wiilkeedii yahay. wiilkii way qabatay, habay siisay. wiilkii oo daalan oo aad u gaajoonayo markiiba wuxuu sheegay inuu ka yimi meel fog oo markaas uu gaajoonayo. waxa dhacday wiilkii in markaasi gudihiisa soo galo marmaydho ka bacdi wuxuu uga sheekeeyay inuu saaka isagoo gaajo daraadeed dhiman raba inuu ninkeeda gooyay uu kaga horyimay wadada oo markaasi uu siiyay xabad roodiya. xabad roodiya nooca u samaysan buu nin baa i siiyay anigoo gaajo u dhiman raba. xabadii baanan cunay oon ku noolaaday oon ku imi hooyo. markiiba hooyadu waxay garatay rootidii ay meesha gelinaysay iyo ninkii qaadan jiray inuu yahay isla ninkan wiilkeeda inuu siiyay. hooyadu waxay markiiba ka warwashay bal haddaad rootigii sunaysna aad meesha ku ridi lahayd imanka inankaagaa cuni lahaa. dee waa qisadu siday ku socoto kolley dee wanaagii ay fashay ayuu inankeedu ku yimi oo rootida ku cunay. hadiise ay siin lahayd xabad dee sun leh dee dabcan wiilkeedu aa cuni lahaa oo u dhiman lahaa. markaa kolley xigmadani muhiimadeedu waxay tahay qofkii wanaag sameeya wanaagu isagu usoo laabtaa, balse qofkii xumaan sameeya waxay tiraa Soomaalidu booraan ha qodin haddaad qodinna ha dheerayn. dabcan intaasan kusoo gabagabeynaya bal imika iyo haatana kusoo dhawo. mahadsan tahay. imika sheekadan inoo soo qaban doonaa waa sheeko mirqaana. ragguna mirqaanka way kala xun yihiin. nin dhakhtar u shaqayn jiray meel ambalaas oo ambalaas u waday. dhakhtarka uu ka shaqayn jiray waxaanu ahaa shaqaalaha wada gaariga ambalaaska. dabeeto maalin maalmaha ka midaba waxaa dhacay dagaal. dagaalkaas baa waxaa ku dhintay 15 qof. 15 qof baa iyagoo dhaawaca dhakhtarkii la keenay. qaar ka mid ay dhinteen. markii dambe way wada dhinteen. intiiba waxaa la soo saaray ambalaaski. ambalaaskiyo dadkii laga keeno lagu dhawaartay kaalay oo qaad dadkii meeshii joogo ayaa wuxuu soo ninku aad buu u soo marqaamay. gaarigii buu galo u istaaray. wuu sii daayo wuxuu ku sii daayay wadada asagoo maray BBC buu daaray. dabeetana BBC markuu daaray baa wuxuu maqlay BBC London waatan magarasa ku soo gashaa miisiga u dhageystay wuxuu maqlay waxaa dhintay 10 qof 5 kalena ku dhaawacmeen. dabeeto gaariguu waday dadkii magarasa ay iyaguna de family-ga ahaa way daba socdaan oo gaarigii waa kan de ambulance ku wadahay. intuu wadada bartankeeda istaagay ka soo dagay asagoo deska mirqaansan wixii taqsiinsan ay dadkiina gabadhiina wada daba istaageen buu xagga dama furay. markaasuu yaarey 10 ka dhintay gartay 5 dhaawacan soo dagay.
waa dadkii uu soo siday BBC buu dhageysanayay ma BBC ma tiri dagaalkaas waxa ku dhintay 10 shanna way ku dhaawacmeen 15 ku sidaana waa meyd intuu soo dagu dabadii furay gawadhiduna oo ku waday dadkii ay dadka ka dhinteen oo kan is wada daba socda ama ambulance bese intuu dabadii furus gaarkiisii iska shidka ay buu waariyay 10 ka dhintay gartay shanta dhaawacano meesha culaysiina soo dagay idinku waaya dadkiiba gaariga soo dago maxaa ku dhacayo markaas waxba kuma dhicine mirqaan buu taliyay gaarigu waa culays 15 baa saaran 10 baa la sheegay inay dhinteen 5 kale iska maarin idinku ka soo daga meesha culaysiina 5 kale meesha culaysiina ka soo daga markii la fahmay nin kale balaaska loo soo dhiibay inuu ahaan nin tala oo dad door ku sii deeriyay meesha doono waaya maqaankii baa tusay dadkii baa fahmay inaanu deem garanaysa maskaxiyan oo aanu joogin ba ninkii caafimaad inaanu fadhiday kadibna waxa lagu hebel baa kaxaynaya gaariga oo de mid kale meesha socday kan baa kaxaynaya adigu iska daayo nag waa loo taagay war mee gaarigu waa culayse ana miisaankiisa yaqaano gaarigan wadan jiray shantan soo dagaan 15 ka saarna waa wada mid 15 ka saarna waa 15 mid shanta iska maarinaysa kullee baarka culaysan si BBC wada sheegtay inay shanooliin shantii noolada gaariga culaysan soo dagaan waa dhibaatooyinka qaad marka waxa dareemaysaa mirqaanku dadku inay ku kala xun yihiin shakadani waxay qosaysaa mirqaanka marka dii qisooyinkii sheekooyinka dee bulshada weyn la wadaagana markan balsaamiye xasan ereeg waa tahay Rabirow sheeko qosol badan baad ka sheekaysay dabcan de sheekaba sheekay keentay waxa si naga xasuusin mudan in ay daawadayaashu ay inala soo xiriiri karaan iyagoo inoo soo gudbin kara waliba sheekooyinka iyo qisooyinka markaasi ay hayaan iyagoo inoogu soo gudbinaya telefoon lambarka sidoo kale emailka ZBA TV sidoo kale commentiyada iyo page-ka in ay inoogu soo gudbin karaan waa tahay Rabirow haddaan kusoo noqono sheekadeena waxay la yiraahdaa ka faa'iiday furitaankii waxay ku socotaa hooyo markaasi la furay waxa jirtay gabadh baa waxa dhacday in la furo oo ay dhashay laba wiil iyadoo dhashay baa la furay maalin maalmaha kamid ah ay dukaan soo gashay dukaan markii ay soo gashay baa waxay ugu soo gashay nin ay is yaqaaneen waa hore oo markaas ay asxaab ahaan jireen ka bacdi ninkii baa la is waraystay oo war hebelo war iyo waran war xaalada ka warano war waan fiican ninku markaa uu ogayeen gabadhan la guursaday ka waran guurkaaga iyo noloshiyo de waa la is waraysto waxay tiri hebelo de horta wada goodin la guursaday balse waa la furay balse hal la furay de furitaankii laba nin baan ka faa'iiday furitaankii la furay laba nin baan ka faa'iiday ninkii baa yaabay oo maxay gabadhii saweego maxaa tiri buu ku yiriyo de waa la furay bay tiri balse laba nin baan ka faa'iiday 20 jira oo bari anfacaya ninkii baa maxaad ku hadlaysaayo de maxaan ku hadlayaa runta bay tiri ninkii baa yaabay oo de mooday inuu gabadhii wax kale ay ka waramayso oo naabal halka dub ugu noqo oo de ku noqon maayo bay tiri hebel wadogeedin lay qabay layna fur de furitaanka ka bacdina laba nin ayaan anigu ka faa'iiday dabcan iyadu halkaas istaagtay de ninkii baa shoogay oo naxay oo yaabay oo gabadhii xoogaa hadalkii baa duulduulay oo waa la yar markaasi afdaafay de ninkii moodaya gabadhu inay amuuro kale markaasi ka hadlayso gabadhina de waxay ku tiri ku farax oo maxaan ku faraxaa ma waxaan aad kula hadlaysan ku faraxaa laba nin baan faa'iiday ma ku faraxaa ha laba nin baan lahayn de hore uma dhacin buu yiri naag laba nin lahayn maxaad uga jeedaa waxa de waxaan uga jeedaa inaan laba nin furitaanka dabadii ay yeeshay sheekadii oo halkii taaganay ninkii iyo gabadha Rabirow de qac isku xakirayeen ayuu ninkii dukaanka soo dhex galay war maxaad isku haysataan buu ku yiri de ninkan ilaa uu yaabay oo sheeko ka daaweyn baa loo sheegay markiiba uu soo booday wuxuu yiri bal gabadhan dhageyso waxay leedahay oo de waxay leedahay laba nin baan leeyahay waxaan ku ka waran bal guurkii iyo noloshiyo de waxay tiri waa la furayso furitaankii laba nin baan ka faa'iiday ka bacdi waxa dhacday gabadhii buu ninkina waraystay war bal ka waran adigu maxaad ka hadlaysaa dhankaaga de anigu waxaan ka hadlayaa de gabadhan waxay igu tiri laba nin baan ka faa'iiday furiinka dabadii maxay ka wada manaag laba nin laba jira ninkii baa de kala masuuxo war balistajiya sidan looma wade ka bacdi wuxuu u sheegay inay gabadhani markaa ay u jeedaan laba wiil baan dhalay balse ay khalad fahmeen labadoodu dabcan
dee sheekadii ninkiibaa halkii ku kala qaboojiyey iyagoo dee markaasi cirka isla maraya. markaa sheekadani waxay u dhigneed isfahan la-aan dhacday dabcan isfahan oo asagana waxaa ka yaabisay labadan nin ee ay leedahay gabadha ay leedahay ayuu fahmi waayey iyana si kale u fahansiin garan weyday markaa isfahan waa dee dabcan Soomaalida la tiraada hadal waa margiyo ninna si uu yiri ninna si uu qaaday markaa sheekadaasi intaas ku soo gabagabeynaya bal adiga iyo daawadayaasha iyo sheekadaad markaasi gacanta ku hayso in Saamiya Xasan Adeeg waxaan filayaa in gabagabadii aan taagnay saddexda soo laakiin codkan uu degelaya inuu habeenka sii celiyaabah saddexda iga baxay maxay haayeen saddexda siitay waa tahay Rabiirow haddii sheekadani aan noo soo qabto sheekadani waxay nala soo wadaagay daawade kamid ah daawadayaasha ku xiran barnaamijkan sheekaba sheekay keentaa sheekadani waxay noo oranaysaa sida tan waxaa jiray wiilkii waxa uu ka helay gabar buu ka helay maalinkii dambeba aabihii buu u yimi sukuule waxaan doonayaa aabbe inaan guursado oo aad gabar markaasi aad ii doonto gabadhii baa waxaa dhacday aabihii baa u tegay gabadh aad u qurux badan ayay ahayd gabadhani aabihii markii uu arkay ayuu wiilkiisii ku yiri de aabo gabadhani adigaba uma qalantide de nin weyno waaya araga ayuunbaa gabadhan de hanan karaa dabcan dee aabihii baaba gabadhii ka helay oo dabcan ku qabsaday dabeetana dee halkiibuu dagaal ka qarxay aabihii iyo inankiisii aabo ma gabadhii dee anigu aan doonayay bad adigu yaa odaygii iyo inankii baaba dagaal dabcan odaygii iyo inankii baaba sheekadii dagaal ay ka gaadhay toobaa la isla yiri oo la iska haysto saldhiga baa la isla tegay taliyihii saldhiga joogay baa yidhi sheekadii ay usoo bandhigeen inankii usoo bandhigoo dee gabadh baan ka helay oo gabadhii baan doontay oo bal aabbahay baan tusayoo dee aabbahayna gabadhii waabuu igu qabsaday dee saas bal kala xalli taliyihii baa yidhi bal horta gabadha ii keena kabacdi taliyihii baa yidhi bal horta gabadha aniga ii keena itusa taliyihii baa gabadhii arkay isna waabuu ka helay gabadhii Rabiiro dabeetana wuxuu qariya qarbi gaadho wuxuu yidhi war dee labadiinaba idiinma baahnee nin sharaf leh ayay gabadhan ugu baahanta sidayda oo kale iska taga markaa isagii baaba isqoray laftiisii sheekadii baa haddana sii qaraxday Rabiiro oo saddex geesood ayuu dagaalkii ma noqday dee halkii isagoo dagaalkii ka qaraxsan oo dee awal inan iyo aabihii un bay haydeen ilaa taliyihii saldhiga iswataan baa waxaa la isula tegay guddoomiyihii magaalada guddoomiyihii baa markii la isula tegay baa guddoomiyihii yidhi guddoomiyihii baa la isula tego guddoomiyihii baa gabadhii arkay guddoomiyihii baa yidhi yaydi yidhi gabadhan isku qabsada oo jeclaada sidaad uga hesheen gabadhan war gabadhan sidayda nin mas-uul ah baa hanan karaa oo aqoon leh sheekada way sii cakaranta sheekadii haddana jiq bay sii noqotay markii hore saddex bay ahayd sheekadii afar geesood iyada mucjisa bay noqotay gabadha gabadha laga helay la isku qabqabsanayo la wada jeclaanayo ayaa mucjisa ahayd dee sheekadii afartii nin dagaal baa ka dhex dhacay buuq bay gaadhay magaaladii oo dhan ayay sheekadii gaadhay magaaladii oo dhan markii ay gaadhay baa waxaa la yidhi bal la yidhi inta maray isula tagna boqorka magaaladii boqorka inankiisii baa la isula tegay war gabadh baan kanoo markii hore kanoo hebelo haddana kan baa iga daba yimo haddana waanu isdulayo haddana hebel baa haddana gabadhii waatana waa la isku haystaa gabadhii baa waxaa dhacday uu yidhi inankii boqorka dhalay bal gabadhan aniga ii keena gabadhan aad isku haysataan aniga ii keena inankii boqorku dhalay baa gabadhii loo keena Rabiirow gabadhii inanku dhalay Rabiirow gabadhii boqorkii inankiisii ayaa gabadhii markii loo keenay buu qac isha uu ku siiyey ayay iswada bedeleen ninkii ragga dhan u garnaqayay ee kala xalinayay ayay isagii isbedelay gabigiisiiba wuxuu buu kaga bilaabay waree yeedi yidhi anoo joogo horta naag jeclaada anoo jooga anigu jooga yeedi yidhi gabar jeclaada gabadhan sidee baa wad ku jeclaateen de miyana anigu tuulada joogaanay doogeen
sheekada halkii bay haddana ku sii cakaranta kusii cakiranta dee yaa ka daba hadli kara boqorka inankiisii boqorkii magaalada dhan maamulayay inankiisi yaa ka daba hadli kara inankiisii gabadhii baa markaa soo dhex gashay waxay tiri shantiina nin shantiinuba isku kay haysataa bal shantiinuba waan ordayaa ninka isoo gaadha unbaa ninkaygiya gabadhii baa carartay gabadhii markii ay carartay bay shantii ninba eryadeen nimankii iyagoo gabadhii eryanaya hadda rabiirow fiirso ayay hog ku dhaceen hog aada u weyn bay ku dhaceen gabadhii baa kusoo noqotay way soo dul istaagteen waxay tiri saasaad ii daba ordaysaan dhammaantiin sidaas baad ii daba ordaysaan sidaad ii daba ordaysaanna diin iyo aakhiraba waad ku seegteen hadda ma fahantay aakhiro iyo diinba waad ku seegteen dabcan sheekadani waa sheeko xigmad leh waxbaanay ku socotaa bal markaasi waxaynu daynaynaa daawadayaasha iyo bal sheekadani qaabkay u fahmeen bal in markaasi ay inala soo wadaageen adigu sidaad u fahantay runtii sheekadani waa sheeko qiso yaab leh balse markaan anigu si eego xikmadina ku jirto waxa weeye dhinac waa adduunyaha daba cararina dhinacna waxa weeye dee haweenku sidoodaba dee daba cararka iyo macaaniinta waxay keentaa waxyaabo kale marka waxa weye ragow dee shantiina nugu iska tashatayna talada aniga migu darsateen saasaan u arkay dabcan waa tahay bal qof iyo aragtidii waxaa laga yaabaa inay daawadayaashu mid walba fikrado kale ay dhiibtaan uu ka qaato bal daawadayaasha baynu daynaynaa sheekadaasi waa tahay daawadayaal intaasi waxaa noogu eeg barnaamijkeena sheekaba sheekaya keentaa waa barnaamij aad alaaba ka daawatan telefishinka ZBA TV stuudiyihiisa weliga magaalada Hargeysa barnaamijkani waxaa la socodsiiyay anigu Saamiya Xasan Ereg iyo Rabiire Axmed Deeriye tan iyo kulantii dambe waa kamaradii ayaan la Ismaaciil. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.